in ka badan 100 arday ayaa ka qalin jabiyay iskuulka Manhal oo ku yaala gudaha magaalada Burco oo habeenkii xalay xalfad ugu qabtay hotel Deere magaalada Burco. Ardayda kala duwan ee ka qalin jabiyay xirfadaha kala duwan xinaha dawaarka cunto karinta iyo sidoo kale barashada Quraanka Kariimka. waxaana munaasabada qalin jabinta ka soo qayb galay waxgarad aqoon-yahan dhalinyaro iyo waalidiinta dhashay ardaydan ka qalin jabisay. ugu horeyntiiba waxaana munaasabadaasi faahfaahin dheer ka bixiyay maamulaha iskuulka Manhal ee magaalada Burco Salaad Axmed oo ka warbixiyay marxaladii kala duwan ay soo maray iskuulkani. annagoo ah dhalinyaro isxilqaantay waxay nagu kaliftay inaanu furno dugsi u gaara haweenka gobolka. dugsigaasi wuxuu gaar u yahay xirfado kala duwan. xirfadahaas kala duwan waxaa ka mid ah xirfadda cunto karinta, xirfadda xinasaarka, xirfadda dawaarka, xirfadaha ugu waaweyn ee uu imika bixiyo dugsiga Manhal. maanta waxaa qalin jabinaysa dafcadii koowaad ee dugsiga Manhal. maanta waxaa cad ardayda ka baxaysa dugsiga Manhal oo isugu jira 3 qayboodba inay yihiin arday dhisan oo qaar waliba ay ka dhisan yihiin xirfadii ay barteen qayb kastaba. sida ka muuqata ee aad ku aragtaan qayb kastaba waxay leedahay dirays u gaar ah. macallimiintaas oo la odhan karo waxay siiyeen waqti ay geliyeen, time bay ku bixiyeen ardayda. maanta waxay soo gaarsiiyeen heer ay ku qalin jabiyaan kuna shaqaysan karaan. dugsigu maanta iyo horeba wuxuu soo dhaweynayaa dhammaan haweenka gobolka ee jecel waxbarashada, xirfadaha iyo maadooyinka asaasiga. geesa kale iyaguna dhankooda waxaa ka hadlay macallimiintii wax soo baray ardaydan kala duwan ee ka qalin jabisay xirfadaha kala duwan. haddii ardaydii waxbarashadu ka halowday ee guryaha loo dirtay ama dadkii waaweynaantii qaxay ee waxbarashadu ka halowday, Soomaaligii, xisaabtii, Ingiriisigii wixiiba waa la baray. xirfad qura laba xirfado qura halkan laguma barto. waxaa lagu bartaa intaas oo xirfada: Soomaali, xisaab, Ingiriisi, caafimaad, Quraan, dawaar, cunto, wax ka dhiman xinne, xitaa alaabadii kale uusiyada iyo gaari baridii baa ku jirta. mabadee soo oodnaba waxbarashadu in 3 xirfad labada xirfado qura laga soo qaatay, laakiin xirfad soo oodanba maaha. qof walba dadaalkii lagu galiyay soo saar waxba lagu baray oo waxa lagu baray inaad dadka wax barto maaha kaliya inaad qof kaliya wax barnay oo nidha adigu ku koobno. adigu waad ku koobnaanaysaa waa run oo waxba lagu baray ayaad ku anfacaysaa, laakiin waxa fiican qof kasta qoys buu ka yimid, reer buu ka yimid, intuu guriga jooga ayaa uga filan inuu baro. maanta intii kaliya cunto karinta ka soo qalin jabisay. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay madashan qalin jabinta oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay farsamada gacanta in la baro bulshada kala duwan. runtii waxaa la yiraahdaa waxbarashadu waa qaali. waxay ka sii qaalisan tahay marka hooyooyin ama hablo wax la baro ay waxbarashadu ka sii qaalisan tahay. waa ku mahadsantihiin sabirkii iyo dulqaadkii aad muujiseen. إن التجربة والبحث والتطبيق العملي هو من وسائل نهضة الشعوب. هذا الجهاز الميكروفون وهذه الآلة وهذه الكهرباء لم تأتي من فراغ، إنما جاءت عن طريق البحث والتجارب، فهي يعني الباب مفتوح أمام المتخرجات. لكن فرصنا قعنت وحوي ميلها لقى قيمة أما لقى إيجو ودمada koritaanka sameeyay waxa loo yaqaan wadamada koray marka la qiimeynayo waxa la eega farsamada gacanta xagga ka taagan Yurub iyo wadamada horumaray. waxa muhiimada koowaad la siiyaa waxa weeye dadka farsamada gacanta yaqaan, kuwaas inta badan ummadda wax u soo kordhinaya oo wax cusub ikhtiraacaya oo keenaya. iyadoo ay siisay inay wax bartaan oo ay maanta ka qalin jabiyaan xirfad loo baahan yahay. waxa uu mustaada qadarka iyo waayaha waxa uu ardaya aynaga arday waa. runtii waa barnaamij fiican inay arday kala duwan ay ka qalin jabiyaan ay noqdaan xirfadley oo lagu dhiirigeliyo inaad noqotid xirfadleyda. waan ognahay ummaddu iyo bulsho waxay ku horumartaa marka xirfadeeda ay soo bandhigaan oo ay ummadoodu noqdaan dad xirfad leh. caalamka waa aragteen waxyaabaha lagu leeyahay waxa kamid ah
waa xirfadaha kala duwan ay dadku baranayaan. cusbitaalka Hargeysa oo halka uu maanta aan ahayn ee halka TB-da habla yar dhowr oo joogi jiray oo la baray kaliya marka shaqada laga rabo sida dhakhtarku u qoro dawada inay garan karaan ay akhri karaan. maantana ilaahay mahdi halka ay marayaan gabdhuhu waynu garanayna. leesko hambalyen maayo keliya inaa barataan cunto karintii hablihii heerka ay marayaan waa ogtiin. arrinka caynkaa maanta hablihii wasiirray noqdeen. idinkii dugsigiinaba runtii aad iyo aad ba umadsantihiin laakiin hawsha idii hadhay ee kale ayadan maskaxda geliya. waa Nuux Maxamed Cabdi, Badda Cas 24 TV, magaalada Burco.